تيجي حجانك حوهيها عيدا كي صحافة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما أنت هالكن وحنو شوفنا سرديكا يقول بارجان بوليسكا وحنو صوب وضعي أو شقة قرن وصوب وضعي بدوميها قبل كرتقو أكثر موسى صلاح بولد من بدوميها هرتا مركب ورياضات بعضهم مع سنتها وكم هالأننا سولو هالكني وسرديكي دقمة بارجال ورنتي مضاء أوريال 20 سنة على سنة ومرنا عن هلين ضيعتر ومن قدومي مركانو كلها ديانك دقمة بارجال كالفدي يجوه الرئي بوحي وشهولات كودي وشهوه الرئي كديين إن شقادة أوه الرئيسة يوحقبة أوه الرئيسة لقبل أبو نظافة ديانك ويهرق شيء ودوينك يريكا ومقالة صوغرة ويهرق شيء waxaa qodobka saddexaad noogu xigay saldhigga degmada baargaar inaan dhisno oo saldhigga booliska maxaa yeelay kii dhulka xaalifinayay oo jaraya waraca wuxuu shidaayay kii gabadh kursaday kii maxaan ku yiraahdaa shaqada dawladda is hortaagay kii maxaan ku yiraahdaa laga shaqeyn waayo oo ummadda dhibay ama jidkooda ama wax kale noqday meeshii lagu xiri lahaa saldhiggu dayr ma leh afar walba hadda dhisan ma qalabaysna xafiiska taliyaha iyo taliye-ku-xigeenku biyo kuma jiraan suuli ma leh waxaan rabnaa marka oo intaan dawladda dhexe la gaarin waxaanu ku talagalay inaanu shacabka u dhex maro oo in maaragtay wax isku tashi iyo iska wax u qabso inaanu ku dhisno sibirkan hadda halkan yaal waa 40 kiis shacabka bixiyay wax kale oo badan ilaahay inuu ka rajaynaynaa injineer baa soo bixay 6,000 iyo xoogay ayuu ku qiyaasay dhagaxa ciida sibirka tekniika daaqadaha albaabada waxa soo dhan iyo gacantii ka qaban lahayd waxaanu ilaa iyo hadda weli wax adigu $1 ku dhowdo ama maaragtay ka yar baa weli lacagta ka soo xirootay wasiirka arrimaha gudaha mudane maxamed cabdiraxmaan abaan halka maruu noogu yimi waxaan isla garanay in dawladda iyo ay ka qayb qaataan wasaaradda arrimaha gudaha iyo shacabka iyo heer degmo iyo heer gobolba weli ilaahay waa sugaynaa mudane gudoomiye saldhigga kani kama maarmi karo inta dawladda dhexe ay soo socotay shacabku isku tashado in marka aad maadaama mas'uulka ugu sareeyo gobolka aad tahay mudane gudoomiye baahidaas baan rabnaa inaan ku soo bandhigno taliyaha qaybta gobolka mudane shiracdi maxaa tayo xigeenka intaba maxaan ku yiraahdaa iyo bahda booliska oo cabdiyay ugu sareeyo taliyaha booliska Puntland inaanu ilaahay idinka qeyladaanta naga gaarsiiso meel aan booliska dhisnayn oo hadda degmadii shaqadii socon mayso waxaa khasab lagu yahay in saldhigga shaqada u horeysa ay noqoto ilaahay idinka waan inoo bilaabanaysayo wixii lagu tashado oo hadee aynu ku talagalno ilaahay idinka waa qabsoomayaan intaynu hay'ad sugi lahayn ama cid kale sugi lahayn dawladda hadiyada markasta dawladda dhexe waa la sugayaa gaadiid male oo ciidanku kiisas baa loo keenaa baadiyaha ka dhaca waxa loo keenaa kiisas magaalada ka dhaca oo xaafadaha fog iyo tuulooyinka gaadiid ku gaaran male baabuur khasab oo meelahaas shacabku leeyahay waxaan ina macno lahayn waan shaqayn karin baa boolisku inta badan ku shaqo baxa ku hagar baxa aad iyo aad bay runtii shaqadooda uga adag yihiin taliyaha iyo ciidankuba waa aad baan ugu kalsoonahay laakiin inta iyagu ay gaari waayeen oo haddii aanay gaari karin wasaaraduna dhulkan dhul fog weeyo oo wasaaradda amniga iyo boolisku inta badan waa dhul fog runtii taliyaha qaybtu waa ognahay inuu dadaal wado waxaan rabnaa mudane gudoomiye arrintaas baan maanta ilaahay idinkiis rabnaa inaanu culeyskeeda kula wadaagno wixii tabara dawlad iyo shacabba daliya dawladba inaan ilaahay idinkaan isla kaashano $6,000 hadda wax badan maaha laakiin shacabka reer baargaal yani awalba iyaga ka qayb qaata dhismihii afarta qol laakiin coronavirus iyo shacabkii iyo ganacsigii culeys ku yeeshay badii oo xiran maydigii iyo qiimihiisu hoos u dhacay oo hadda dhulkan waa ognahay waxa maaragtay dhaqaalaheena ku xiran yahay badda iyo beriga ahayd labadiiba wax kama yimaadaan badina bishii labaad baa la xiray coronavirus sababtiis welina way xirantay marka mudane gudoomiye soo dhawow baahidaasi waa taagan tahay oo gaadiid iyo dayactirba aad iyo aad baan runtii ugu mahadsan tahay shaqada qaranka ee aad wado oo booqashooyinka faraha badan ee isugu jira maaragtay dhinac walba soo dhawow mudane gudoomiye dorad shalay waxaan ugu soo booqatay dawladda hoose iyo sida shaqada u socoto kaaga mahad celinayna inaan sidaas noo maaragtay ku joogtayso aad iyo aad baan runtii ugu mahadsan tahay ku soo dhawow gudoomiye السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.